Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada janalkeena iga fil wanaag maanta maxay nii wadaa oo ujeedaan waxaan idin wado ramadaan soo dhaw asxaabe markii la afurayo wax lagu afuro loo baahan yahay gaxwada lagu dhamo ama gaxwada lagu cabo sax marka alaabtan yaraan kasoo tuuranay waa baradhada cuntada lagu karsado hadda ka hor waa soo geliyay laba nooc ayadoo u karinayo laba noocan saddexaad hadda soo geliyay waa tookada saddexaad waa isla baradhada leh oo baradhadan cuntada baradhada saaribta too sameysan kartaa muhiim ah suugi iyo maraq in lagu karsado maaho saan macaanta badan quruxda badan kasoo sameeyay waa ila arki doontaan sida u sameystay iyo waxaan ka sameystayba soo dhow maanta dhan markaa soomneed yani waxa u baahan tahay waxa ku sii afurto afka ku bilaabato markii timirta la cuno ama biyaha la cabo kadib qasab ma aqaan inaa oo cala tool cuntada ka bilaabato gaxwada waxa ku dhanta u baahan tahay casriye ahaan oo cuni kartaa soon kaligiisa maahan waxa kale subaxi cuni kartaa waa ila arki doontaan kulli waxaan ka sameystay sida u sameeyay labada nooc soo geliyay si ka duwan u sameynaya hal nooc soonkii hore soo geliyay nooc kalena waa kasii horeeyay ma aqaan waqtiga janalka da ka baartiin waa ka heleysaan المهم labada nooc si ka duwan oo soo sameeyay kan u sameynaya waa ila arki doontaan hadal badan ma buuxsho waa kana inta waxa ku haystaa saddex xabo baradhada oo cuntada mid qiyaas wata hadi familka u karsanaysid intuu leeyahay adaa u kale ana saddex xabo soo isticmaalaya oo qiyaas ah oo na weyneyn oo na yareen hadii family weyn tahay ka badso ama waaweyn ka dhig inta loo weyneeyo way si badanaysaa leemaha hadii familka inta oo yar yahay familkaaga adi qiyaastaada taqaanid kulli inta familka ku filan baradhadan u jeedaan meelahaas cagaar ka tahay wax dhib ma lahan maqaarka leh waa wax cagaaran ma ahan bukaan ma ahan ama wax kale ma ahan hab maqaarkeeda cagaaran marka fiiqdo waa caadi noqonay dad ay soo dhahayn baradhada cagaarta ma fiicno balaayo cudur ay keentaa iyo baradhada gaduudan ilmihim aan waxa ogaaday inay maqaarka leh tahay gudaha ka bukin gudaha duu ka buka xitaa yani bolol maahan waxaan maqaarka kalar ilaa u dhaliyo waay waa iska fiiqaysaa cadaan ku noqonaya gudaheeda ma arki karno maaho bolol maahan laakiin bolol ha u maleynina ilmihim waa fiiqanaya marka fiiqdo aan wada dhameeyo waa soo dhaqaya hadana marka soo dhaqo isku soo noqonayna gooni oo bixinaya qofka iska soo daadina inta kale soo dhaqanaya insha Allah baasha lagu jarjarana soo qaadana waa jarjarana soo jarjarana yaryarihiisa oo jarjara oo khafiif ileen biina ku kariyo marabo biidan inaan ku daro marabo marka inay yaryariis ku ahaato way meeshaas gaduudan oo iska bixinayna intaan kale waa kana saas u yaryareynayna saas marka u jarjaro yaryariis fiino waxa rabaa sida bocorka tiitooga camal inaan u jarjaro ma ila fahanteen saas ma jeedan yaryariiskaas sababtoo wax biyo ah hadaa ku dareenin oo waaweyn ka dhigtid baradho ciirina meesha ka soo baxayso ma noqonayso biseel marka si walbo dabka kugu saarnaado waa gubi kartaa limo ma bislaanayso sababtoo wax sokor iyo caano ayaa lagu daraa hadii khafiif tahay way la bislaanaysaa hadii san khafiif ahayn huurka biyo dhalayso iyo caanaha iyo sokorta huurkooda waxaas dhan ma ku filnaanay waa inay khafiif ahaataa soo huurkaas iyo waxa ugu filnaado marka halkan asaas u soo jarjarana maanta dhan
mar walba waxaa fiican waxaan oo macaanka markaa oo ka sameysanaysid baradho ahaato ama bataati macaanka ahaado oo wax macaana ka sameynaysid sida bocorka tiitooga camal u sameynaysid inaa khafiif u jarjarto yaryariis ka dhigto waaweynka ma fiicin xitaa marka hadhooti saxanka uu saaran yahay qurux ma ku noqonayo ileen ma aqaan qurux ma noqdo because wax waaweyn mar walba balbalaarka qurux ma keeno waa kana asxaabeysana soo jarjartay saasa kasoo wada dhigtay ujeedaan kaamirada hadda zoom ku jirto aad u khafiif u yahay ma loo maleynayo zoom ku jirto kuwaana kasoo gogoy waa kana kuwaan waa gaduudka hadda aan soo sheegay waaye bolol ma ahan bolol yaa la moodin ma aqaano soo ku dhashtaa inta badan baradhada ama gaduudkaas ama cagaarka maqaarka markuu yahay gaduud uu noqdaa asiga dhan hadduu ku noqono gees uu ka noqdo dhexdiisa waa iska bixinaysaa waa soo dhaqayaa mar labaad markaa soo dhaqdo digsiga ku saari lahaa ku kari lahaa ku shubanaya horta waa dhaqaaya ilaan waa jarjare maaha cuduraa socdo cudurka ilaah naga badbaadiyo waa inaa nadaafada ku dadaalnaa waa kana soo dhaqdo digsigeega kusoo shubtay digsiga markaa ku shubtay waxaa kaloo ku darayaa alaabihiisa kale ku daraya dibka ugu gaabanaa saaraya alaabta malkala reereebayaba ila fahanteen yacni wax dibka in la saaro sokorta lagu darayo haddana subag mar lagu darayo macaanaha mar lagu darayo maahan alaabtan ha kala reebina la dhahaa waa soo dhaqday digsiga kusoo shubtay waxaa kaloo ku shubaya hadda sokorta qaandada oo cuntada lagu cunaa ku cabiraya sokorta 2 inta kugu filan macaanka aad jeceshahay adaa og haddii macaan ziyaada aad jeceshahay waa ka badsanaysaa haddaadan jecleen waa ku yareysanaysaa ana 4 qaando ilaa 5 qaando camal ku shubay 5 qaando caano badan ku shubay isla qaandadii leh oo caano bada ah waxaa kaloo ku darayaa 1 qaando subag ah ay subaga haysatida ku darsanaysaa subaga hadda isticmaalaya subag nabaati waaye ay subaga haysatid ama aad jeceshahay ku darso adiga qasab ma waxa ana ku daray caanahan hadaa cayil ka baqaysid intaan ka yareyn kartaa oo cayil aadan rabin hadaa ina qofku cayilisid ilmaha kale arabtidna waa ka badin kartaa heela ku dara qaandada subaga ku daraya ilmaha alaabtan hadaa ugu roonaatid aad u cayilayana iyo hadaa tahay hooyo nuujinayso maasha Allah ku anfacaysaa waxiisa dhan waa ku daray hada dabka ugu yar u gaabinaya dabka aad u gaabinaya ma weynaanay soo caanaha iyo sokorta iyo gubta ogiin ma waa kana saan u noqday mar walba shishabina asxaabe mar walba shabina hoos kii ku dhaga soo kor soo maro mar walba kii hoos ku dhaga kor soo maro wali waa shishabinaya maanta dhan waa shishabina biyo ina ku daro marabo maaha haddii kale biyo ina ku daro noqonaya waa kana asxaabe markaan shabaska ugu dambeeyo soo shishabinay waa diminayaa خلاص waa damiyay wuu bislaaday inta damin ka hor waa fiirinaysaa wuu bislaaday waa daminayaa dabka u damiyay intaas oo noogu dhamaaday waa kana sida u jeedaan qurux ma sha Allah gaxwale ku dhan maanta dhan gaxwada ya asaha kala reebin alaabtan hadaa dhadhamisata asxaabe ma iska joojin kartid soo baroobay kulli idinka ila arki doontaan quruxdiisa u jeedaan wixii indhaha ka jeclaata uurkana ka jeclaanaysa mar walba ma sha Allah u jeedaan soo asaga dhan isku milmay biyana ma ku soo karin wax oo biyaha kuma taaban huurka bas ku kariyo dabka ma u dheereen dabka daw dheerey lahaa saama noqon lahayn mar walba waxa huurinaysid dabka u gaabi waa kana asxaabe ka faa'iideyso aan asxaabtada la wadaag hadaa jeclaysatay soo baroobay commentigan igu dhaaf sida u aragto iyo sidoo ku noqday iyo sida dhadhankiisa u aragtay waa mahadsantahay kanaalka ku cusubtahay subscribe saar videoga ku xajibay like saar asxaabtada la wadaag mar labaad. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.